okay jaranjarada ayaan gelinay waxaan ku dar jaranjarada waxaan ka hormarinayna floorkan sameynayna floorka noo soo qaad floorka markaan noo soo qaado backline kaas noo qaad halkan waxaan noo gelisaa offset ah offset kaas waxa wareegtaa 0.1 offset si edidaalada gendergan meeshan waxa ka soo dhigtaa height-kiisa meeqan uu ahaa floorkaas 0.6 oo ka bilaabanayo earthiga meeshan aan soo bixinay top level kaas wadi okay qaybtan waan soo dareynaa edit boundary aa leedahay okay sidaas aan u dhaaf halkaan markaa joogto horta waxaan sameynaynaa jaranjaradan aan gelinaynaa waxaan soo qaadaynaa model line marka ugu horeysa intaan jaranjarada gelin model line calaamaynaynaa halkaan waxaa ka dhigtaa halkaas mitir 20 noqon halkaas waxaa rabto ka dhigo anigu saasaan laakiin doorbidayaa steerkana soo qaad steerka marka hore maxaan sameynaynaa waa in halkan lasoo habeeyaa waa inaad bartaa shaqada qabanayso eridaa leedahay maximum razor height kaaga horta waxaa ka dhigtaa 0.15 aan ka rabaa aniga wax ka badan ma rabo thread kaagana 0.3 halkaan markaa joogto wuxuu ku noqday 24 xabo halkaan oo kale aan ka bilaabaynaa waxaan sameynaynaa markii kaliya markaan dhahno dhexdu ku aaday waxaan sameynaynay right leedahay halkaan markaa ku dhufato qaybtaan kale afar laatan xabsaas ku sameysmaan 3 mitir 60 hadii loo qabto 0.15 24 pieces sama halkaan waxay kala durugsanaan ku jira horta waxa ku wareegsan horta assembly-gan ka bedelno alwaax inuu yahay waxaan rabtaa precast inoo dhig okay taas banaanka naga cun marka